wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka Hirshabelle Saacadiya Maxamed Nuur Saacadiya Burus ayaa waxa ay ka hadashay dil xalay saqdi dhaxal degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe lagu geystay mid ka mid ah haweenka degmadaasi ku lahaa ganacsi iyadoo haweeneyda la dilay ay xaas u ahayd mid ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya ee degmadaasi Mahadaay ka howlgala wasiirka wasaaradda haweenka ee dowlad goboleedka Hirshabelle Saacadiya Burus ayaa waxa ay sheegtay in arrintaasi ay aad uga walaac markii ay maqleen isla markaana ay ku tilmaamayaan fal naxdin leh saakay waxaan aad iyo aad xanuun iyo murugo aan ku soo toosnay xalay saqdi dhexe degmada Mahadaay ayaa waxaa gurigeeda gabar ganacsato ah oo leeyahay Saacadiya Maxamed Maxamuud oo ganacsato ah ayaa gurigeedii irid inta lagu jibiyay qolka jiiftay lagu tagay banaanka la baxsaday 5 xabadood lagu dhuftay ay maaragtay aroorteedii iyo gurigeedii dhexdiisii loogu galay waxaa dilay nimanka banaanka joogo oo shabaabka waxaana ay ku marsiyoonayeen oo farxun ah oo ay hadda bilaabeen ah waxaa ku qabay askari waxaa wax ka gatay askari marka haweenka murugo aad iyo aad u badan ee degmada Mahadaay ayaa soo wajahday wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka Hirshabelle Saacadiya Maxamed Nuur oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxa ay sheegtay in degmada Mahadaay uu ka jiro dayac amni halkaas oo dayac oo ka jiro xagga amniga ah sababtoo ah haddii aan qofka aan cadowga ah ee aan ogoleen nabad in lagu joogo meeshii ciidankii meeshii lagu sugayo gabdhahoodii iyo walaalahood iyo naagahoodii iyo hooyooyinkood guriga lagu soo galayo ma aqaan amarka dambe la sugayo oo ay dhacdadan caawa kow aynan ahayn ayna soo noqon doonto dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda aniga aan ka tirsanahay ee Hirshabelle waxaan baaq soo jeedinaa inaanan falkaas cusub oo ayaan darada oo farxumada hor dhacay inaanan fadhigeena aan ku sugin howlgallada ciidamadana gabdhaha dhibaatadaas ay ku dhaxayso raga la dhashay qori haysta raga qabo qori haysta marka in ay fadhi aan ku sugno wax maaragtay xanuun maalin walba inaan sheegno waxba ka soo bixi maayaan Cabdiraxmaan Cali Deerey idaacadda Risaala magaalada Jowhar.